الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. إن شاء الله تعالى عاوة ورمضان كيه 29 في هذه الليلة المباركة habeenkan barakaysan oo ay suuragal tahay inay tahay habeenkii u dambeeyay ee Ramadaan ama Ramadaankii hal habeen ah ka haray. waxaan insha Allahu ta'ala rabaa inaan la wadaago kelmadan oo ku saabsan maada bacda Ramadaan hadduu dhamaaday في هذه السرعة الفائقة دقدقن سيدن aadka marka u xeel dheer ee marka haw shalay bilaabmay oo maantana dhamaaday. maxaa Ramadaan ka dambeeya? maxaan ka faa'iideysanay Ramadaanku maadaama uu ahaa madrasada marka ardaygu uu ka takharujayo oo ka qaran jabinayo waxbuu ka faa'iideystaa. maxaan ka faa'iideysanay ikhwaani wa akhwaati fillah? awalan horta Ramadaanku dhamaashaha ku dhamaaday iyo sidan degdega u dhamaaday shalay isagoo bilaamay oo maantana hadda dhamaanaya cibra ayaa ku sugan. ayay laakiin ugu sugan tahay innaha la cibra liulil albaab, dadka markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caqliga siiyey ee adduunkan fahmaya maqsadkiisa iyo inuu yahay meel yaroo gaaban iyo biriij laga gudbaayo, ka dhiganaya adduunkan inay meel bad ah tahay. acmaasha saalixa oo sameeyeen Ramadaanka iyo waqti walbana doon hay ku maraan ka dhiganaya. adoomaha sidaas oo saalixiinta ah waxay u tahay dadka ulul albaabka ah, waxay u tahay cibra iyo fiiro iyo faham inay tahay daartani daar ghuruur meel lagu dagmaayo. allah wuxuu leeyahay يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ضدوا يبوها إلهي وحق حقود دقنية نلاش الدنيا ده. إذا نحضر أيها الإخوة وحين نغصوا عن عبرة إنه عمره إنه جابن يحي شلي أيوب بلا ميمانتو لمانيا وعمر جيني أو تجايا يقبر جونو سيدوانينه. الله وحليه سبحانه وتعالى markuu ka hadlayay masaa'ishan oo kale يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله wuxuu gadoomiyaa oo istamariya habeenkii dharaarta hawsha waxa ku sugan cibra لأولي الأبصار, dadka wax fahma, dadka indhaha leh. innahu waa maxay? waa qalbiga. innaha la ta'mal absar ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. dadka markaa basiirada leh ayaa markaa wax ku fahmaya. marka qodobka u horeeya oo ka faa'iideysanayna bishan Ramadaan oo sidaa degdega u dhamaanaysa waxay tahay cumrigeenu inuu gaaban yahay, adduunkan inaan safar ku nahay oo markaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala daartii aakhiro inaan u shaqaysano. qodobka labaad oo muhiimka ah oon rabo inaan qodobka ku labeeyo wuxuu yahay ikhwaani wa akhwaati fillah الاهتمام بقبول العمل. إنان كو دادالو عمل كي هان سمايني ونكم مرغونو ما لينغا أقبلي مثل لينغا ما أقبلين. إذن أيها الإخوة ما أنتوا على الكيسا داد فربضان أو مركا عمل سمايان كفر أحسن. نعم إن هذا خير سمايزوت إن كفر هذا مهم، لكن وإنه قفكو أكسونا هذا أو مرور بكفكرة عمل كان مكو سميسو صلاة هذا تكتو مركا ليل كمركا تكتو اتكبح هذا وين تلاحظوا تلو ما لقى أقبلي مثل لقى ما أقبل مالك وسع عليه. الله سبحانه وتعالى وحكى أقبلاؤون المتقين تما كمدمتها يمسك مدمتهيد. مركا أيها الإخوة رمضان كي وحان سمين عماشي صالحات كي وصوم كي صلاة دي قيام كي زكدي صدقدي قرآن كي ختم القرآن يدعاء ذكر كي إفطار الصائمين كي إلهي هينك أقبله. إلهي dadka laga aqbalo
allah inagu daro subxaanahu wa tacaala. laakiin taas waa inaan ku dadaalo inaan markaa han ka murugoono oo nidhaahno maala naga aqbalay. kaana asalaf alsaalix yajtahiduuna fi alcibaada fi acmaali saalixaat. salafkii iyo dadkii wanaagsanaa way ku dadaali jireen cibaadada, acmaasha saalixaadka way ku dadaali jireen. markay ku dadaalaan way sugi jireen, kadibna waxay ka murugooni jireen oy markaa aad markaa qalbigooga allah subxaanahu wa tacaala ay weydiisan jireen in laga aqbalo, ayay markaa allah subxaanahu wa tacaala hay weydiisani jireen. idan ayuha alikhwa, caaisha radia allahu canha maalin maalmaha ka mid a rasuulka waxay weydiisay waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أيضا وحيت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ما كو خمر عبي أو مركز وحضي أيضا سيكال ليس كو الله إيمانية أعماش الصالحات كو الله إيمانيين أيغو قلوب تودو هاي عبصونيسو عملك الصالح أو حي لي ماذا صلاة الليل بتكنيان waxay tukanayaan ayuu haddana cabsoonaya. kuwaas waa kuwa bay tiri ma kuwa khamriga cabaya oo markaa xatooyada samaynaya? qaala laa yabnata sidiiq, ina sidiiqi ma aha buu nabigu sala allahu calayhi wasalam isagoo qur-aanka u fasiraya, walaakinahum aladiina yasuumuun, waa kuwa soomaya ويصلون اتكناي ويتصدقون اصدقاء لبحايا وهم يخافون أن لا تقبل منهم ومرك كعب صغير إن لقى أقبلين. أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كوا خيره ودق دقايا مرك إخواني وأخواتي في الله نفطي لي إن فيه نوح قدر دار ميا عملك الصالح مركان صمينه إن لما يسترنه أو كد دالا إنه إلهي درتي هويحي كدي من المرقون وأنا لهنا ما لنا أقبل مثل لنا أقبلين. قضب كاس وقضب مهمة على مدى إن عملك لقى أقبل محاد كو قران كرتا. حلينا العلماء قفكم لكم عملك الصالحة هو السمايو هدو عملك الله الصالحة نفتيسي سي سميسو أو خير كي كسي أرضو أو مصارع إلى الخيرات هو اسكارك نفتيسي عملك هو لقى أقبل. لكن قفك انتو رمضان كي أعمال في عن لي يمدي كدي بنا هل كي هو كميسي أو حمانتي كن نقضي qofkaas camalkiisa uu ku qasaaray kii horena uu hoogay oo sameeyay wanaagsan. ilaahay ku inaga mayaan. qodobka saddexaad oon rabo in la wadaago ikhwaani wa akhwaati fillah wuxuu yahay athabaatu calaa taacati illaah, taacada ilahay inaan ku sugnaano. waxaa jira dad fara badan ramadaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala caabuda oo markii hore hadday xumaan sameeyeen xumaanta iska dhaafa, oo markii hore haddayna salaad tukanaynin salaadii ramadaanka bilaaba, laakiin ramadaankii markuu dhammaado halkii ku noqda. هؤلاء رمضانيون كواس ورمضانيون لا ربانيون كو إلهي سبحانه وتعالى عبدي معها كوا إنا كم نقول معها. إذن هضب الثبات على الأعمال الصالحات مطلب. أعماش الصالحات كإنا كسبنان ووحل ربوي. الله حكله النبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلهي عابد إلى يقينتك إيمانيسو. عملك صالح ملئ أجل ملئ وقت ملئ أجشي سو مركات كلمته. إذن هذا صلاته هم كد دالو صلاة الليل كي هم بلوني انتهاج كي هم تكنين أيانا جوجين. النبي عليه الصلاة والسلام حلوش شيء عبد الله إنه تكنجري صلاة الليل كدي من هوس كدائي. النبي عليه الصلاة والسلام حيري مركو كهلاي وحوري يا عبد الله يو والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يو والنبي صلى الله عليه وسلم مركو كهلاي لا تكن مثل فلان هبلو كلها النقل كان يقوم من الليل هل كيف سوجي دي جري فترك قيام الليل كيف كداي. عبد الله بن عمرو بن عاص من النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدا كوي. مركا إخواني وأخواتي في الله أيانا نقولن كو أعماشي وناكسنا ورمضان كي سمينيين حلقي كجوجة
haba yaraadee camalka saalix waa inaan wadnaa. qodobka saddexaad oon rabo inaan ila wadaago wuxuu yahay macaasidii qofku ramadaankii haddaan joojinay oo shaydaankii la xidhxidhay aan macsidii joojinay macsidii ayaana lagu noqonin. qofkii sigaar cabi jiray oo sigaarkii iska da'ayay, qofkii jaadka cuni jiray oo ramadaankii jaadkii iska da'ayay, qofkii majaalista xun fadhiisan jiray oo ramadaankii majaalistii xumaa iska da'ayay, qofkii asxaab xun lahaa oo asxaabtii xumayd ramadaankii ka go'ay ayuuna ku noqonin. waman taaba wacamila saalixan fa inahu yatuubu ila allahi mataaba. waayo ramadaanku ruuxduu dhisaa, wuxuu siiyaa markaa tadriib iyo markaa awoodda iyo sidii baytariga oo kale qofku markuu jaajgareeyo haw ku soconayo oo kale waxaa loo baahan yahay ilaa ramadaani aakhir ilaahay inuu socdiyo ramadaana fara badan inuu ku dadaalo. marka ikhwaaniga wa akhawaatii fillaah, qodobka inaga tegaya wuxuu yahay ee muhimka ah, haddii aad markii hore caado lahayd oo iyo macsi ood ramadaankii joojisay ha ku noqonin. nafta waa cadowgaaga koobaad, qofka naftiisu waa cadowgiisa koobaad. qofku naftiisa waa inuu markaa ka adkaado. ilaahay kuwa naftooda ka adkaada allah inaga dhigo. ma u malaynaysaa naftaadu fii haadihi lwaqti inay khayr ku amrayso? laa, naftaadu ina nafsa la ammaara wa facaala, macnaa waxay ku amraysaa mar walba ku amraysaa xumaanta. marka qof waa inuu yidhaahdo laa, naftiisa waa inuu baro ma samaynayo. hadday samaysana waa inuu ku ciqaabo. ow marka haddii naftu macsi hay markaa samayn jirtay ku noqoto waa inuu qofku ku ciqaabo. waxyaalaha ciqaabta waxa ugu fiican kuwa markaa maalka ah. naftu xoolaha way jeceshahay. qof waa inuu yidhaahdo haddaad ku noqoto naf yahay waxaan bixinayaa intaas oo lacag $50 $100 baan u diraya miskiin hana noqon miskiin baan siinayaa oo bixiyo. markaa maalinta waxaan ka dhigaya $150 hadduu karo ama wuxuu karo ha u bixiyo. leylka oo kale waa inuu ku ciqaabo ila caawa markaas intaasaan tukanaya haddaad ka tagto leylka intaad tukan jirtay. idan ayuha alikhwa, ilaahay subxaanahu watacaala fi hadihi saaca waxaan weydiisanaynaa inuu acmaasha inaga aqbalo. ilaahay kuwa naarta lagu xoreeyo allah inaga dhigo. allah subxaanahu watacaala fi hadihi saaca waxaan weydiisanaynaa inuu naarta inaga xoreeyo, waalidiinta inuu naarta ku xoreeyo. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.